السلام عليكم أحبابي ميل والبا joogtaan waa idin salaamay si walba maqalkayga soo gaarayo ku soo dhawaada channelkayga Dr. Sajiya haduu rabraal ka noqdo maanta waxaan rabaa in aan ka hadlo qodob oo tala ay iga tahay sidoo kale ragga iyo dumarka ayaa markaas taladani ayaan siinayaa waa ragga iyo dumarka isqaba ayaan ka hadlayaa hadii rag ay tahay iyo hadii dumar uu markaas ay tahayba ayaan taladan ka siinayaa saygaaga ha ku oranin erayo markaasi u dhibsanayo saygana waxaan dhihi lahaa xaajiyadaada ama xaaskaaga ha ku oranin erayo ama hadal ay dhibsanayso oo aad dareemayso inay dhibsanayso ha ku dhihin haduu rabraal ka noqdo gudaha ayaa sii gal doona mawduucina fadlan hadii ay la socoto muuqaalka la garay una sii share garay asxaabtaada waa mawduuc aad u muhiim ah oo xasaasi ah in markaas labada qalbi oo midoobay in isxaq dhowraan hadii xaajigaaga uu ku dhaho ama aad ka maqasho erayo aad dhibsanayso oo kugu dhaho ama xaajiyoy hadii aad ku dhahdo xaajigaaga erayo uu dhibsanayo uu ku xumaanayo hadaa dhahdo fadlan maanta kadib ha sameeynin waxaas ugu horeen labada qof oo isqabta diinta islaamka waxay fartay inay si wanaagsan iskula dhaqmaan hadal macaan in la iska helo hadal macaan in ay iskula hadlaan qofka kale in uu ilaaliyo dareenkiisa sidoo kale in uu tixgeliyo karaameeyo waxa ku soo arooray arintaasi iyo aayado iyo xadiisyo ayaa ku soo arooray waxaana kamid ah kuwa hada soo socda Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri iskula noolaada nolol fiican Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri asagoo u hadlaya ama raga u hadlaya wuxuu yiri waxa kamid ah calaamooyinkaas in uu idin ka abuuray naftiisana haweenka si aad iskugu xashishaan si aad xasilooni iskugu heshaan ayaa waxa loo abuuray dhaxdiina Allah wuxuu ka yeelay isjeclaysi iyo isku naxariisi taasina waxa ugu sugan calaamadaha qoomkii Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu jiri haweenku waxay leeyihiin waxa la mid ah waxa korkooda ah oo wanaag ku dhisan ragase waxa ugu sugnaa korkooda darajo kiinana ugu qeyrka badan waa kan ehelkiisa ugu qeyrka badan aniga idinka qeyr badan ehelkayga rasuulkeenu wuxuu leeyahay nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee kuwiina loogu jecel yahay xaggayga waa kuwa ugu akhlaaqda fiican oo degan oo dadka jecel ayagana la jeclaada ama la jecel yahay marka waxaad ula hadashaa hab degan oo naxariis ku jirto in uu ka joojiyo erayada aad dhibsanayso adigana isku day hadallo fiican oo dabacsan in aad kula hadasho gurigaaga ilaalinta guriga waa waxa weyn shaydaanku wuxuu ugu jecel yahay guriga muslimka in uu dumiyo wuxuu leeyahay nabi maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee nin mu'min ah nin muumin yuuna ka caroonin haweeney muuminad ah hadii uu dabci ku naco mid kale ayuu kaga raali noqonayaa qof dhameystiranna ma jiro wuxuu yiri nabigeena naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee waa kuma kan dabeecadihiisa oo dhan raali laga yahay marka waxaan codsan lahaa labada qof lamaanaha isqabta misana qofkan markuu hadlo qofkan kala dhibsanayo in markaas la istixgeliyo la wanaajiyo la xushmeeyo la isna xaq dhowro qofkan mar uu hadli karaa xumaan way ka soo fukan kartaa adigina inaa u qabanin tunaasul asameyso mar walba aad tunaasul asameyso oo adigu qeyrka ku sii mar walba tunaasul asameysana waa qofkaasi marka si dambaysa sidiisa hore ka soo dibcayo ama uusan sidiisa hore ahaanaynin marka waxaan dhihi lahaa haliska tunaasulo nolosha waxa maysa ahaateen haduu qofka kale ka tunaasul lahayn maana dhalan lahayn ama maba dhasheenba haduu tunaasul u jiraan lahayn marka halisku tunaasulo nafta iyo shaydaanka iyo ka xoog badan shaydaan markasta wuu joogaa adigu cusbilaysto guri dhisanayaa la dumanin oo adigoo nacay ereyadaas uu ku dhahayo qofka lamaanahaaga ah ama isla nooshihiin yoosan ka awood badanin inuu gurigaas uu dumo ama rag ama dumar labadaba insha Allah intaas ayaa ugu baxaya barnaamijka kala siinta aad ay ugu mahadsantihiin inta ila socotay muuqaalkan la gareeya una share gareeya dhamaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogto aad ay ugu mahadsantihiin